qaadka waa cuni jir waxaad leedahay maanta aniga waa la ii qaaday lacag kama bixin hal dhibaato oo ilaahay qofku ka badbaadiyay mooyee ciidamadii dukun daakun ka dhigtay baa jirta marka baahida mid waa dabiici waa human nature weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qofka ku abuuray waa biyaha waa cunnada waa dharka waa qutul daruuri baa la yiraahdaa waa baahi nature weeye oo qofka noloshiisa ku taxalluqo baahina qofku isaga abuurta waa balwada waa sigaarka waa qaadka waa qabriga oo wixii ka badan oo intaas faakahaysiyo oo habartu ay ku taado xagga daah ku xir xagga maacunka iga bedel waxa soo dhan waa baahi qofku abuurtay weeye ma baahi nature ma waxaan hubaa baahida nature-ka oo rabbiga subxaanahu wa tacaala uu jaangooyay waxa aan helo inta badan way ka fayn kartaa wixii hadda ka daba gaabtana oo ka qabiyoobana waa waxa ka kaban kartid ama aad la macaamili kartid laakiin baahida aan dabiiciga ahayn oo qofka bini aadanka ay abuurto ma la xallin karo xal looma heli karo waxa Mareykan baa dadka ugu dhaqaale badan baa iyo Sacuudiga iyo qolyahaas aan iraahdo ceelasha shidaalka la Kuwait iyo Sacuudiga iyo wallahi ma xallin karaan baahida aan nature-ka ahayn oo joogtada ah oo dadkeenu ay dabeecadda ka dhigteen sababta ku taa qofku wuxuu rabaa xisaab la'aan inuu ku noolaado habeen iyo maalin qof waxa uu ku dhex jira ay taakharasha u bixinayo xagee wax ka soo galayaan marka soo xisaabtantid ma boqol loo baa tahay niba alla ka dhiga ilmaha kugu taxalluqa waarid baa leedahay family iyo qaraabo kala leedahay problemkii dabiiciga ahaa oo iskaba imaan karo oo geeri imaan karto oo caafimaad darro imaan karto oo dadka xanuunsan karaan baad leedahay waxa soo dhan ma xisaabtamaysid kuwa waxay ku andacooda anu qaadka waa cuni jir waxaad leedahay maanta aniga waa la ii qaaday lacag kama bixin shaxaad baan ku helaa qaadka ilaa baan guraasho qofku intee shaxaad qaad ku heli karaa mase ku noolaan karaa qofku wuxuu soo shaxaado qofka soo bariyay kan maanta kugu qaadaysa soo bari kaama rabo waa deynta la isku cafin buu ka mid yahay qorqaadka noo soo qaad buu ku leeyahay maanta hadduu laba jad ku qaado bari adaa inoo qabay dadka soo dhacda rabtid qorgaaga gadanaysa guriga soo xadaysa sariirta gadanaysa taasa deyn ka qaadaysa waa ka dhuumanaysa ka kala deyn ka qaata dariiqaas waa ka go'aysa waxa laga yaabaa 4-5 dariiq inaad ka go'did magaalada aad joogtid dibkaasna mid ilaahay ku baday ma waa mid adigu aad abuuratay way waxa hadda soo siyaaday markay qaadka joogtay waa baroonayd bahal masiiba ah oo la yiri cidda soo gelinaysaana waa ciidanka cidda loo keenayo laga gadayaana waa ciidanka waa qamri hadda nooca ay taana noocaynu wali aragnay ma waa wax siyaasadaysan weey waa wax dadka loogu talagalay oo meel kale laga keenay in dadkan dhaqankoodii iyo noloshoodii iyo diintoodii lagu baabaasho dalka Shiinaha ba Ingiriisku markuu adduunka dhan ka talinayay waa ummadaas iska tirada badan cawaanta u badnayd mara loo waay markaas Sacuudida dhaqanadooduna waa ku adag yihiin bini aadanku cid ka soo adag dhaqankeeda waa ku adagta Soomaalida mooy Ingiriisku wuxuu u fakiray dadkan sidoo ka yeeli lahaa geed daroogayo abiyan la yiraahdo baa loo sameeyay waa loo dhoofiyay maraakiib baa loo saar waxay noqdeen dad la qabsaday daroogadii la qabsaday iyadoo aan xabad lagu ridin oo sun lagu sumayn bay waxay ka baxeen bini aadanimadii ka baxeen wax gidaarada daadsan oo iska yaala oo aan naf lahayn baan oo aan fikri karin waxay sugayaan geedkaas markuu yimaado markabka iyo diyaaradaha sida aqli kala male ilaa uu kacaankii dambe uu dhashay oo Ingiriiska laga soo saaray dadkaasi trillions baa saa ku duloobay fursada kaga baxa hadda Djibouti dal Soomaaliyeed way darisa waa laga yaabaa qaarkiin inuu tagay marka tagtid waliba hadda waa soo kabatay way roonta isticmaar baa ka talinayay khamriga iyo qaadku labaduba يعني سيدي waxay ka yihiin basadaha saaray markaad aragtid dadka naxdib aad u baqtaysa hadeer percentage ka dulaysan oo raamaha leh oo gidaarada fadhiya
caloosha ku xanuunaysa ilaahay wowi waliba hadda way soo kabteen way fiican yihiin ciidamo balwada lagala diray baa u dhismay qoliyahan tabliiq la yaa si fiican bay uga hana qaadeen oo dadkii waa wacdiyeen dadkii noloshoodii baa soo noqotay ninba maalin habeen noo sheekeynayeen waa taqaaniin intiina badan bakayla la yiraahdaa wuxuu ahaa jiray burcad badeed anaga isku reera halka wixii uu ka dhistay ilaahay un baa qulubtiisa soo jeediyay waa uu ka samra waa wareej waa ka dhaxba laakiin wuxuu ku reebay aasaar aan ka hari karin ilkaha xabad lagu ma arko jirid madow baa ku hadhay wuxuu igu sheekeeyay yamaniinta hadii garo wax loo obsado saabixiya wuxuu igu sheekeeyay arin la yaab la marka wuxuu yiri gaari baan watay wadadaan soo maray bundadan soo dhaafay gurigan UN ku deganaayo inuu walde hortiisa meeshaas baabuurtu way isku qabataa jam bay noqotay gaari yar baan watay khamiis baan qabaa cimaamad baan qabaa koofiyad baa ii xiran gaarigaana wata baabuurtii isku xiran ba askar baabuurta kala furaysa mid daaqada iga garaac wuxuu yiri sheekh horow soco baabuurtuna waan iga horeysa waan iga dambaysa markaas waxaan iri buu yiri muraadin tadajiyay baa waxaan ku yiri war hadda wada ma banaane xagee mara goortaan hadlayo afkayga warka wuxuu yiri war wuxuu sheekh ma ayna waa alkalooysta Allah hadlay wuxuu ahaa waxa la hadlay adduunka marka afol xumada uu ii geystay buu yiri aasaarta baan wariyay ka soo waqsan kareen ilaahay man kula shaka warram hadda saa u badantiin ilkiin waa wada dhalaalaya ninina ilka maqaya mooyee daba qabashaaleedi waxaan idin kala dardaarmaya wax aakhirana cadaab idin horseedaya adduunkana fool xumo ku noolaanaysaan iyo faqri iska daay waa qabri waa qaad iyo wax la xiriira ilaahay uga baqo iska daay ugow ilaahay markaad ka baqdid oo cabsi rabbi calooshaada ay gasho ilaahay waxbuu ballan qaaday ilaahay ballantiisa kama baxo ilaahay wuxuu ballan qaaday risqaaga waasac inuu ka dhigayo ilaahay wuxuu ballan qaaday inaad xirdigiisa ku jirtid waad amaanadiisa tahay sababta ku tahay adoon rabbi isu dhiibay baata mid labaad dadka laga rabo dhaqan xumada inay toosiyaan oo shacabka toosiyaan oo example u noqdaan waa ciidankii naadreeska wata macallinkii shacabkaati dadkeena walaalaheen iyo ilmaheena wax daran macallin ugu noqon karaa ninna ma uu rabaa ilmihiisa iyo walaalihiisa wax daran ay noqdaan shacabku kulli waa walaalaheen iyo ilmaheen waxa la rabaa qofka xun inaan ka soo qabanno oo sunnada xun sameeynaya